وحبال وضعيدا ميدتك كنت ما يروح وماليشيات كالصوماليلان uga geeriyootay dagaalkii gardarrada ahaa ay ku soo qaadeen deegaanka Buqdarkayn maalintii Jimcaha iyadoo maantay meydadkaas sidaad halkaas uga jeedaan lagu aasayo deegaanka Og tirada qasaaraha dhimashada saraakiishii ciidanka SNM ayaa sii siyaadaysa iyadoo halkaan aan idin kula wadaagay ilaa 5 sarkaal tirada hadda saraakiisha muhiimka ah ee dagaalka ka geeriyootayna ay marayaan 13 sarkaal oo muhiim ah waxaana kamid ahaa sidaan muuqaalkiisa idin kula wadaagay Maxamed Jibriil oo iyagu dhexdoodu ay dileen hadalkii Ciro wajigiisa maxaa laga dhadhansan karay muuqaalka Ciro oo uu duubay oo uu leeyahay sida tan ku bilaabay hadalka inaan tacsiyadeeyo ciidamada qaranka iyo ciidamada madaniga ee geesiyaasha ee naga geeriyooday dagaalkii shalay ka dhacay Buqdarkayn wajiga Ciro waxa ka muuqda jacda iyo jaciirta dhimashada maleeshiyaadkii uu soo qalday iyo dagaalkii muddada uu qorsheynayay ee uu ku raali gelinayay beesha habar jeclo isagoo yiri waxaan idin qabanayaa Buqdarkayn sidoo kalena uu ku tijaabinayay awoodiisa waa uu ku jabay wajigiisa ayaana laga dhadhansan karaa hoos waxa uu ka abaabulayay qorshe 3 bilood ah in lagu qabsado dagaalka Buqdarkayn maalintii ciidanka Puntland ay joogeen Dharjaale isla maalintaas ayuu Ciro waxa uu helay hub iyo zaanad ciidan oo markaas uga imaatay wadamadaas Itoobiya iyo sidoo kale markaas hub ay uga soo degay dekada Berbera waxaana la diyaariyay ciidamo fara badan iyadoo isla xilligaas la qorsheynayay in weerar lagu qaado iyagoo isla hartigi waa kala jaban yahayo qaybna waxay aadeen buurleyda Calmiskaad halkaan kalena ma taqaanay waxba kama jiraan waa in hal mar la weeraro waxaana dagaalka Ciro uu ahaa mid qorshaysan oo aan xogtiisa halkaan idin kula wadaagi doono waxaana hadalkiisa ka muuqata in uu soo wada baxay oo uu markaasi walwal iyo walbahaar ku hayso jabkii ku dhacay askartiisii iyo meydadka xabaal wadayeedada xilligan lagu sameeyo Og soo dhawaada dhamaantiin muuqaalkan la gareeyo share gareeyo YouTube-kana ku soo biira aad baad u mahadsantiin aynu ku bilowno kaamirooyinka sirdoonka SSC Khaatumo waa kuwa meel kasta joogo waxa ay duubeen xabaal wadayeedada maanta loo sameeyo maleeshiyaadka jimcihii maamulka SNM duulaankii ku soo qaaday Buqdarkayn lagu jabiyay iyadoo tirada dhimashadaasi ay kor u dhaafayso 50 ruux waxaana halkan ka arki kartaa in kaamirooyinka sirdoonka SSC Khaatumo ay meel kasta joogaan cisbitaaladii Burco ay soo duubeen ma taqaanaa yiishagan meydadka xabaal wadayeedada ay duubayaan qabriyada ay joogaan meel kasta ay joogaan waana tan iyaga oo le kaamirada naga daaya iyo ma taqaanaa dadku waa badan yahay meesha waa lagu leeday waa lagu jabay iyagoo ku haya marka ay bil Ramadaan tahay oo maalin Jimcaha la cibaadeysanaya ay tahay oo aad deegaan aadan lahayn ku soo duushid oo khiyaali aad markaas aan samaysid oo qorshayaashaadii farsilmaan oo Ilaahay garabkaaga ka baxo dulmiga iyo xaq darrada ku socotid aad ku jabtid waxa kugu dhacayso waxa ku dhacay Ciro iyo kooxda argagixisada ahayd ee Daacishtii aan dhanka Hargeysa maamulka Hargeysa jabkii ku dhacay cadayn ayay u tahay cid kasta oo dulmi iyo gardarro isku soo dayda in ay mariyo dhiig la kala laaban doonaan dulmiga iyo gardarrada ay wadaan waa cashir way waa cibaaro sidaas ayayna ku soconayaan maalin kasta waxay aasi doonaan xabaal wadayeedyo ay qori doonaan badeelada iyo garweyntu iyaysan idin ka dhamaan badeelada iyo garweynta diyaarsada mararka qaar koodna cagaf waa inaydan hurin waayo Ilaahay garabkiina kuma jiro
dulmi iyo gardarro iyo xaqdarro ayaadna ku dhimanaysaan hooyooyinkaas masaakiinta ahna gurigaas gablan ayaad dhigaysaan ninka meeshaas ku dhimanayana hooyadiisi aabihiis iyo reerkiisii kaliya unbaa tabaya waa caddayn weeye kadib xabaal wadeereeda iyo jabka ku dhacay maleeshiyaadka SNM waxay ciidanka SSC hayaan meydadka saraakiil caana oo ay goobihii uga carareen iyo askar iyadoo tirada isku darka meydadka ay ka carareen ay gaarayaan 20 xubnood waxaana ciidanka SSC qaatumo uu baaris ku wadaa saraakiishan iyadoo markaasina la soo bandhigi doono maleeshiyaadka SNM intay afkooda ka qirteen tirada dhimashadu waa 75 ruux iyadoo dhaawacyadu kor u dhaafayaan 180 ruux waxaan halkaasi uga jeedaa in dagaalkan uu ahaa mid qorshaysan waxaana ku cadeynaya cirro oo ishayn kari waayay ninkii cirro ahaa oo inta ishayn kari waayay soo hadlay wuxuu isqariyaba isa suuxiyaba hurdaayo bay dhahan isaaqo hurda xagee ka hurdaa waxaa la yiri weerka ciyaya iyo weerka aamusan ka daran weerka aamusan ayaa daran cirro waa weerka aamusnaa weeye anigu halkan dhagartiisa ka digay cirro iyo reerka uu ka soo jeeday ee Habar Yoonis inse Habar Yoonis ninkii waraag ka sugayay waa kuwaas weeye cirro ninkii lahaa u hambalyeynay markuu doorashada ku guuleystay waxaan ugu baaqaynaa inuu nabad kula wada noolaado madaxdii hawiye iyo mataqaanay kuwii kale ee mataqaanay lahaa u hambalyeynay gacmo dhiig ayuu la galay gacmihii buu dhiig la galay afkaasuu dhiig ku leeyahay dhiignu ma ahan dhiig uu daadiyay gardaradii uu soo qaaday uu ku jabayo waa kanayo ooyee dadkii u hambalyeynayay lahaa madaxweynaha Soomaaliland hambalyaanu u diraynaa lahaayow orda la ooya la soo ooyay cirro waa kanayo cirro waa kanaye hawiyihii iyo daaroodkii mataqaanay wanaaga ka sugayayow hawiyihii iyo daaroodkii u hambalyeynayay lahaa halkaas ismaamulka cusub isbedelay ismaamulka cusub isbedelay oo mataqaanay waa inuu nabad ka shaqeeyo lahaayow waliba anaga qoliya iyaga reer Puntland siyaasiyiin inkaar qabtaa jirto dhankaas u janjeerta ooynayayow waa kanay cirro orda la soo ooya cirro waa kanay khaatuma jabisay oo barooranaya oo soo wada baxay isayn kari waaye bal la ooya ku bilaabay hadalkayna tacsiyadeeyo ciidamada qaranka iyo ciidamada madaniga ee geesiyaasha ay naga geeriyooday dagaalkii shalay taga dhacay Bowdharkayn anigoo ka xun duulaankii gardarrada ahaa ee lagu soo qaaday deegaanka nabadda u joogay sidaanu ballan qaadnay qaranka waajib baa naga saaran qaranka waa difaacayna intii dhimatay ilaahay u naxariisto intii naga dhaawacantayna ilaahay caafimaad degdeg oo sariic ah siiyo waxaase sheegaya nabadda naga leexin maysa inaanu doonno dagaal mar nagu soo qaaday meel nabaddana waanu wadaynaa difaacana waanu adkaynaynaa qarankana waanu difaacaynaa kuwa iyaga maankaabka ah ee ku niikinaya cirrow inay ku arkaan annagu waanu rabnay waliba si xilli xasaasi ah oo dhow inaa soo wada baxday waanu rabnay waxaan ku baaqayaa nabad qoryahana dabka aad sii gelinaysid oo bulbul aad ka siinaysid waanu rabnay annagu se waanu ku ogeyn haddaan hay sirdoonka beesha harti ee indhaha dheer leh annagu cirrow waanu ku ogeyn waa sababta aan doorashadii maamulka Hargeysa anigu u taageersanay inuu Muuse Biixi soo baxo sababtan u taageersanaa way wax badanna waxaa ninsan oo ragsan Muuse wax badanna Muuse ragsan laakiin si habartan munaafiqnimo habartan cirro la leeyahay mataqaana madaxa dhukuran munaafiqnimo iyo mataqaana khiyaali iyo mataqaana baalki buu ku mashquulsanaa intaas Muuse nin rag ah oo bareerihiisa cadaystay ninka ragga inuu bareerihiisa cadeystana qayb raganimada kamid ah way cirro markay inaad xilligan kuwa maangaabkaayo dadka yaga ah ee hartigan dhoohan iyo daaroodkan qalbadu wada jaban taayo dhoohan iyo inay ku arkaan baan rabay barashada wanaagsan hadda iyaga isbarateen anagu mar hore aanu isnaqaan aad iyo aad qaranka waa kan weeye calankiisuna waa kan hal qaran bay Soomaaliya leedahay waana qarankaas weeye
dambiila tahay qarankan aad ku celcelin maba isku haystaan inay dambiila yihiin qofka hartiga ama daaroodka ee aaminsan qarankan waa qof qalbadu jawaabta anaa ku leh qofka u hambalyeynaya maamulkan oo daaroodka ama siyaasi ha noqdo kuma marmarsiyoon karo waa maamul Soomaaliyeed nimankan gooni goosad bay sheeganayaan waa goosato khiyaaliya been bay sheeganayaan dhul ayna lahayn bay ku qarwayaan qofka u hambalyeynaya sababta aan ku haysto waa sidaas way madaxweynaha waa loo hambalyeyn karaa qof madaxweynaha la doortay waa loo hambalyeyn karaa laakiin si ninka aad u hambalyeynaysa waa ninka qarankan ku wardinayo hadda markay ma adaa qaldan misaalaha qaldan qaranku kan weeyaadeer dambiilaana tahay sababta keenaysa waxaasna waa in been aad ku celceliseen run noqotay beenta mar badan haddii lagu celceliyo dadku xaqiiqay moodayaan dambiilaa tahay qaranna matid reer isaaq la yidhaahdaa tahay ayaa runta ku sheegay jabhad baa tahay jabhad baa tahay hadalkaasaana kugu haysta qarannimadan aad ku wardinay sidaa lagaa gubaya iyada lagaa gubaya annagaana ku soo qabanayno jabhad baa tahay qaran matid waxaan isku haynana waa intaas qofka marka inta iska indha tiraya ee daaroodka ah ama hawiyaha ah walaal hadda qalbada ku jaban sababtaan hawiyaha ugu soo celin ma taqaanaa waxa jira siyaasiyiin hawiye ah oo raba inay madax ka noqdaan Soomaaliya oo ma taqaanaa magaca Soomaaliyeedna ku wardiyo waxa kamid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo u hambalyeynay odaygan ninka aragtida marka noocaas aaminsan waxaan rabaa inaan madaxweyne ka noqdo hawiyaan ahayo daarood baan ahay aragtidaasna wuu aaminsan yahay si ay isku la keenaysaa marka soo munaafiq ma tiid markii munaafiq baata siyaasiyiintii u hambaliyay madaxweynaha Puntland Sheikh Abdullaahi Dani baa kamid ahaa marka horta fahan waxa aad u doodaysaan fahan guudba kama haysataan miya siyaasiyiinow waxaan aad ka hadlaysaan fahan guud kama haysataan miya mise waa iskagaan qoraal ba iska soo qoraysaan war waxa la isku hayo waa intaas weey waana xaq darrada ay ku jabayaan weey cirana waxaan leenahay walaalow cidna dhulka waxba kama yaalaan waxbaha geedha isku xoqin waxbaha marmeeraysan cidna waxba dhulka uma kala yaalaan anu mar hore aan sheegay hartiga isaaq waa dad Soomaaliyeed wax dhib ah oo dhex taalana ma lahan fikradda qaldan ee argagixisada SNM ee Daesh baa dadkan isku diraysa maalinta ay fikraddaas ka tanaasulaan ama harti uu ka tanaasulo mid uu wato maalintaas nabad iimaanaysa intaas weey maalintaas nabad iimaanaysa baraan dhacaysa labadayada markay kii tanaasulo leh hal sugo Soomaaliyeed ku daawadayaal noqda labadayada ama anaga tanaasuleyno deegaanka yaga inaan ma taqaanay kan ku dhex isticmaalno oo kan aanu wadano baanu ka tanaasuleynaa aragtidooda gooni goosadka ah baanu ku biireynaa waliba qasab intay naga adkaadeen baan la wadaynaa ama anaga ka adkaanayno sanduulla kan uga dhigayna yaa sameeyay kan Maxamed Cawaale Liibaan baa sameeyay Cawaale magaciisi weeye Cawaale waa calankii Soomaaliyeed kan anaa leh أنا ilaalinaya gurigayguna ii sugnaanaya intaas way muhiimad ama ninka isaaqe calankan gogarada ay gududan wato oo khiyaaliga iyo beenta ah ba adkaanaya ama anaan ku adkaanayo kanaan wadanaya waxba aniga Soomaali kale igama gila haday iyagu shabaab noqonayaan hawiye iyo haday balaayo kala wataan adeerkan awowayaashay baa keenay iyagana leh mana ku qasbay haday deegaankooda ku haysanayaan iyo hadii kale laakiin gurigay kanaan ku dhex isticmaalaya macnaheedu dad baa waxay aaminsan yihiin haddaan ka wato in aan u dan leeyahay Soomaalida war Soomaalida kale haday cadow soo raacayaan iyo haday jin raacayaan ayay u talaa laakiin se kan anaa leh iyo faraskan anaa leh waa intaas haday iyagu wanaag iyo Soomaaliland rabaan iyaga u talaa haday sidan nimankaas u niikinayaan oo marba hambalyo u dirayaan iyaga u talaa xaqiiqada waa intaas weey warku inuu ma taqaan haduu hal yahay laba laga dhigo ma aha cirana waxaan leenahay adeero waxaad hadda isbartay kuwii maangaabka ah iyo ku niikinayay baad isbartay kuwii maangaabka ah ee ku niikinayay isbartay qorshaha dagaalka markii qorshaha dagaalku idin sheegay muuqaalka hortiisana ku sheegay waa diyaarsanaa dagaalka 4 bilood baa la diyaarinayay 4 bilood baa dagaalkan la diyaarinayay qorshaha dagaalkan wuxuu ahaa maalintii ciidanka SSC qaatuma ay galayeen ceeri gaabo in la bilaabo dagaalka balse ciidamada SSC oo ka hor dhacayo waxay galeen ceeri gaabo intay masakan ka dhaqaaqeen taasaa qalqal keentay ee dagaalkan wuu qorshaysnaa saf balaaran baa la rabay in loo bilaabo shangeed iyo qorilugud iyo buqdarkeen in hal mar laga soo bilaabaa la rabay balse ciidanka SSC qaatuma waxay isku fidayeen ilaa iyo sanaag oo weerar ka faaday oo jabiyay awoodoodii halkaana shangeed weerar ay ku soo qaadeen waa la jabiyay
weerarkii ubuucda ahaa marka intaasoo weerar ay ku jabeen oo lagu laayay oo ay hoog yahaan toolay kala kulmeen boqdarkayn baa la yidhi awoodeenna inta harsan aynu ku tijaabino dagaalkan inta la sheegay waxaa soo gashay 1,000 nin baa soo gashay dagaalkan tiknikaduna way badnayd qoryo fara badan way heleen dagaalkan 1,000 nin ilaa 1,500 oo nin ayaa loo diyaariyay wuxuuna ahaa in aroortii xilliga shabaabku ay xeeraraan ayay wax soo sahamiyeen sahamay soo dirsadeen waayada dagaalku bilowday aroornimadiiba ilaa maqribkii la iskula dhacay ciidanka SSCna 3 goor oo ay dagaal soo qaadeen 3 goorna way jabiyeen waana sababta keenay in hub la kala qabsado in gaadiid la kala qabsado in saraakiil fara badan ay ka cararaan in la jabiyo ay baabaan maanta xaalooyada haystaan cirana ka hadal siisay dhariga karka maxaa ka keenay wali kuleelka cira inuu maanta ooyo oo indhihiisa laga dareemay ilmada iyo jabka ku dhacay oo inta ka hadal siisay intaas aan ku soo kufinayaa billahi tawfiiq